waxaa geeriyooday jilaagii Telugu ee Gaatamani Siva Rama Krishnamurti ee loo yaqaanay Krishna. Jilaagan waxa uu dhalay jilaaga caanka ah ee Mahesh Babu. Haddaba jilaagan geeriyooday ee Krishna waxa uu ahaa jilaa Hindi ah, waxa uuna ahaa agaasimo filim iyo soo saare, waxa uu caan ku ahaa shaleemooyinka Telugu. Haddaba jilaagan waxa uu geeriyooday maanta oo Salaaso ah. Jilaagan ayuu wadnuhu istaagay, kadibna waxaa loola cararay isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaala Hyderabad. Kadibna dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu jilaagan geeriyooday, da'diisuna waxay ahayd 79 jir. Xirfadiisa filim waxay socotay 5 sano. 5 sano gudaheed wuxuu ku metelay 350 filim in ka badan oo doorar kala duwan ah. Waxaa loo yaqaanay jilaagan superstar. Sanadkii 2009 dawladda Hindiya waxay ku maamustay abaalmarinta Padma Bhushan. Haddaba geerida ku timid jilaagan ayaa ka nixisay jilayaal badan oo aflaanta matala. Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Krishna waxa uu ahaa xidig caan ah oo qulubta dadka ku kasbaday xirfadiisa jiliin ee cajiibka ah iyo shakhsiyadiisa sharafta iyo saaxiibtinimada leh. Waxaa geeridiisu dhaawac weyn u tahay aflaanta. Waxaan tacsi tiiraayan leh u dirayaa Mahesh Babu iyo qoyskiisa. Haddaba taageerayaal badan iyo jilayaal ka tirsan bahda aflaanta Hindiya ayaa tacsi u soo diray jilaagan geeriyooday. Asxaabtayda qaaliga waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga.